wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland ayaa maanta waxay soo qaban qaabisay kulan loogu magac daray gacansiinta dakhliga ee agaasimayaasha maamulka iyo lacagta ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire, agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Cabdi Gurxan, agaasimaha waaxda xiriirka dadweynaha iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan agaasimayaasha maamulka iyo lacagaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Somaliland Maxamed Cabdi Gurxan, waxaanu faahfaahiyay kulankan maanta loo qabtay agaasimayaasha maamulka iyo lacagtu. Horaa loo sheegay dowlayaasha socodsiinta hawlaha qaranka. waxaynu daba soconay agaasimayaasha guud horaa looga kulmay, wasiirada horaa fariintu ay wada wax xukuumadda go'aan kaba qaadatay ay ka mid yihiin. agaasimayaasha guudna kulamo la yeeshay, laakiin halkay u dhimatay waa maanta. agaasimaha maamulku waa la taliyahayga gaarka ah, waa la taliyaha gaarka ee wasiirka. waa sida kolba uu u beeqaamiyay ee uu tayeeyo u tireeyo baa qaranku uu ku najaxayo ku guuleysanaya. marka anaga ahmiyad gaar ah baan leeyahay maanta oo qaranku u leeyahay. haddaba taa markaan soo koobo iyadoo wasiirku si rasmi ah noogu furi doono, dadaalada bartilmaameedka waxay daba socdaan sidii aynu u sii tayeyn lahayn, aynu u sii xoojin lahayn tayada maamulka maaliyadda si aynu u bixino adeegyo iyo mashaariic iyo waxyaabo anfaca dalka. nuxurka maanta marka mawduuca markaan ku soo noqdo waa mas'uuliyadda idinka sii saaran gaar ahaan xagga dakhliga. xisaabiyaha guud ee qaranka Somaliland Axmed Daawud, agaasima ku-xigeenka waaxda cashuuraha bariga oo iyaguna madasha ka warramay ayaa waxay ka hadleen faa'iidada kulankani. dalka miisaaniyad aynu leenahay nimanka qalinkooda ay ku baxdaa waa idinka weeyaan. qalinka miisaaniyadda qaranku ku baxda qof kale oo qoraa oo aan idinka hayn ma jiro. marka taa waxaa la doonayaa miisaaniyadda qaranka ee aad qorsaan ee qarashaan u isticmaashaan ina horta yaraysaan, isla markaana dee lacagta halkii laga doonayay idinkunba haddana aanagu ah. waxaa weeyaan markaan guud ahaan soo qaadno markaan miisaaniyad ka hadlayno, miisaaniyad qaran waxay ka kooban tahay guud ahaan waa dakhli iyo kharash. waxaad moodaa dakhliga iyo kharashkaasi isku dheelitiran in la samaynayaa inaanu ahayn in kharash iyo dakhli isku dheelitiran lahayn, in loo baahan yahay dakhliga dhabtaha ee dalku u baahan yahay laga heli karayo in lasoo saaro marka horeeya, oo qoondada loogu talagalay noqoto mid ka badan talagalka ah. gabagabadii waxaa kulankaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo kulankaasi si toos ah u furay, waxaana uu ka sheekeeyay ujeedada ay kulankani ka leeyihiin. uu doonayay waxay samaysaa adeegyo, qaarna waa tiir dhexaad, qaarna waa kaabayaan. wasaaradda maaliyadda adeegyadeeda tiir dhexaadyada waxaa ka mid ah oo ugu horeeya miisaaniyadda. miisaaniyaddu laba dhinac bay leedahay, dakhli iyo kharash. marka waxaa kaloo ka mid ah dakhli ururinta, waxaa kaloo ka mid ah la socodka iyo maareynta iyo dabagalka kharashaadka, waxaa kaloo ka mid ah ka warbixinta iyo ka soo xisaab celinta. shaqooyinka tiir dhexaadka wasaaraddu waa kuwaas. kulankan maanta la qabtay ayaa waxa uu daba socdaa kulamo hore lagu qabtay magaalada Hargeysa agaasimayaasha guud iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Shiglan, wararka bulsho, Hargeysa.